wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shijaraad ku qabtay gudaha degmada Ceelifina gobolka Sanaag waxay tacsiid tiiraanyo u direen marxuum Saalax Maxamed Jaamac oo habeennimadii xalay lagu dilay degmada Darweyne gobolka Sanaag waxayna sidoo kale caafimaad u rajeeyay muwaadiniin kale oo ku dhaawacmay isla goobtaasi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo gooreen halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ka go'an tahay inay sidoo ugu adag wax uga qaban doonaan sidoo kale waxa uu ugu baaqay dadkii dhibtaasi gaadhay inay xakameeyaan lagana warsiga xukuumadda Soomaaliland qoyskii iyo heladii uu ka geeriyooday marxuum Saalax oo xalay gacan ka xaq daran ay ku dishay magaalada Darweyne ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marxuumka samariye iimaan saadiq ilaahay ka siiyo waa dhacdo aad iyo aad u fool xun aad iyo aad u murugo badan aan lana filaynin maanta inay ka dhacdo Darweyne iyadoo dhibaato fara badan ay Darweyne iyo hareeraheeda oo muddo dheer soconaysay ay ka jirtay ilaa iyo labadii sanadkii barkii ugu dambeeyayna nabad iyo isdhexgal maxaan ku lagu soo celiyay xaaladii markaa halka ka taagnayd noloshuna ay caadi ku soo noqonaysay aad iyo aad waxaan uga xumahay in maanta noocaasi ay ka dhacdo waxa ayaan darro ah in mar kasta oo nabad la xidho in ay dad nabadda ka soo horjeeda ay maalin walba fuliyaan falal naxdin leh oo caqabad ku ah in nabadda si dhammaystiro wixii waxaa ka taliyey iyo wixii fuliyeyba waa dembiilayaal if iyo aakhiraba waxaan mar labaad ku celinayaa waan dadkana leeyahay aan ku talinayaa in waajibku ay tahay in wixii waxaa geystay la baadi doono la soo qabto sharcigana la keeno inta ka horeysa waxaan bulshada reer Darweyne ee isku noosha ah ee isnuugta ah aan kula dardaarmayaa inay samir iyo dulqaad yeeshaan dambiile ma qarsoomayo dhagarqabe ma qarsoomayo ilaah baa ka shifaya waa la helayaa dad kala dhuuman kara oo kala qarsoomi karana maaha waxaan leeyahay haddii aynu rabno in waxyaabahaas oo kale ay istaagaan waxaynu u baahannahay in wixii waxaa geystay la baadi doono oo la dabagalo oo wax kaloo beri ka ah oo aan waxba geysan maxaan ku dhahdaaye aanu ina ka lumin daba joogay waxaan tacsi kale u dirayaa labada nin iyaguna ku dhaawacmay ee goobta kula dhaawacmay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu boogadhayo nabarkaa xaqdarrada ugu dhacayna in ilaahay uga hiiliyo si maxaan ku dhahdaa degdega oo caafimaadkoodii oo taama uu u soo celiyo waxaan leeyahay maanta uma baahnin inaynu mar dambe aynu qalaalaaso dambe gallo maanta kii wax dilay iyo kuwii wax dilay ayaa maanta ugu nolol xun oo ugu warwar badan oo ugu rajo xun xalaale wixii awoodda xukuumadda ahna waa la fulinayaa gurmadkii ugu horreeyeyna xalayto ayuu soo dhaqaaqay ilaa saakana wuu soconayey kuwo dambena ciidamo dambena way imanayaan waxaanu jecel lahay in naloo duceeyo ilaahayna uu xukuumadda ku guuleeyo in ay maxaan ku dhahday gacan ku dhiiglayaasha la soo qabto dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa inay xaaladda deganaansho ku hayaan inta xukuumaddu ay waajibaadkeeda fulinayso dadweynahana waxaan leeyahay xukuumadda in lala shaqeeyo sidii dadkaas gacanta loogu soo dhigi lahaa in lala shaqeeyo oo aan dambiile iyo dhagarqabe inaan la qarin cidna waxba uma aha waxaan leeyahay halala shaqeeya xukuumadda sidoo kale xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay inay ku gacan siinayaan xukuumadda Soomaaliland sidii wax looga qaban lahaa falkaasi foosho xun inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in ajalun 'indahu musamma maanta waa yandaro in ay geeridaas oo kale nagu timaado bini'aadan geystay gacanka xaq daran geysatay runtii waa mid aanu aad uga xunnahay aanu aad u cambaaraynayno u aragno inay tahay gardarro qaawan waan geedna loogu soo gaban waanu tacsiyadeynaa heladii Jaamac Saalax Maxamed Jaamac iyo in ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo
gacanka xaq daran baa dishay nin iska si amni oo nabada kusoo hoystay oo gurigiisu ku jooga buu ahaa labadii dhaawacmayna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu caafimaad siiyo u boogadhayo nabadda innaga ayaa ku nool innagay dan inoo tahay waxaan ka rajaynayaa walaalaha yaanu tolka nahay inay arrintaas nagu simaan inta baadhitaanka iyo hawsha iyo ciddii waxaa geysatay la helayo inay adkaystaan qalbiga xejistaan wax radu ficila aanay samaynin oo inagu sii baaha waxay ila tahay inay nagu filan tahay dadka nool maanta inaynu u talino oo aanay wax dambe inaga sii raacin taas ayaan rajaynayaa inaynu isla fahamno meel uga soo wada jeesano dembiilaha waana dee maqaadiir dhacday berina way dhici kartaa dhinac kasta laakiin muxuu weeye muhiimaddu sida loo maamulo sida looga shaqeeyo sida loo dhayo dhibaatadaas oo dhan loo dhaahayo ayay ku xidhan tahay insha allah waxaan rajaynaynaa inaynu gacan wanaagsan ka geysano ma rabno in loo heeliyo ninka dembigaas binaadnimada ka baxsan galay dad masaakiinoo meel iska fadhiya rasaas ku furay sabab la-aan sabab aanu ugu heelino garan mayno waanu kala shaqeynaa xukuumadda sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa waxaa dhacay barakac magaaladii hadda lama degana buuraha iyo miyiga ayay dadka galeen barakac baa dhacay iyadana waxaan ka codsanaynaa xukuumadda hay-adaha samafalka bal intaaba in dadka iyagana gacan lala soo gaadho waayo barakac xoogle maanta magaaladii waa laga qaxay waa laga baxay dadkii waxay waran yihiin buuraha dhinacyada ka kala xiga iyagoo aan haysan hooy ay roobka ka galaan maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland ceelaf weyn